السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة دواء الجنة كانت انت جراتك عروضة ولكن راح نجيسين ما انت فيديو عصب كلا ايدي هايا قور ولا الباوحي سوي ديسي ولا لي عنك تيدا ويقوسا سبضا أنا كان هيرو حمرايا إنا دبصد بانو دبصد ولا لي سيبان كعاوية قبرداس waxaan ku leeyahay waad ku mahadsan tahay weydiska isoo weydiisay su'aashaas ma is weydiisay maxaa keenay carruurta qaar inay ku kala ka oohin badan yihiin marka u horeyso waxaan ku dhahayaa cunugaada ama cunugtaada uma ooynayso inay dhib adag anakana dhibaan uma ooyaan carruurta laakiin waxay u ooyi karaan inkastoo sababaha badan yihiin laakiin qaar hadaa ka sheeg waxay u ooyi karaan ii soo jeeso ifahan waqtigaadaa rabaa jaceylkaadaa rabaa way ooyi kartaa waxay kale u ooyi karaan inaan marka kale usoo jeesanin oo waqti siinin oona dhageysanin laakiin markay ooyaan markaas wax weyn ka dhigno maxaa dhacay maxaa jira ma aan soo jeesano taasoo ku caawinayso inay markasta ooyaan sanadka ka dambeysana kasii darayaan marka waxaa kaloo u ooyi kara hadduu cunuga yar yahay 2 jir camal weli oo hadalkiisa si fiican oo iskugu tootoosi karin oo wuxuu dareemaya oo sheegi karin marka frustration darteed taasna u ooyi karaa way dhacdaa waxaa kaloo carruurta ka ooysii kara marka TV badan fiirsadaan TV-yada ama aaladahan maxaa la dhihi jiray iPad-yada iyo whatever waxa la fiirsado marka cartoon ama wax ka fiirsaa maskaxdooda way ku warwarartaa taasna oohin way ka keeni kartaa markii dambe waxay sameynayaan markay garawayaan marka ha u ogolaan cunugaada inuu wax fiirsado 30 daqiiqo ka badan waxaa kaloo keeni karo carruurta qaar baa marka wax macaan cunaan waxay ku noqon karaan sidii darooga camal oohin isku bedel marka fiirso goormay ooyaan carruurta ma markay juice cabaana ma markay nina cunaana marka wax macaan cunaana marka u fiirso hadee markaas ay ooyaan dan ina ka yareysid ka deysid marka maanta waxaan noo hayaa 5 shay oo hadaa sameyn insha Allah nagu caawinayo inaan oohintaas dhibaatadas on cunug carruurteen ay joojiyaan number 1 tus waxa u dhaxeeyo hadalka caadiga ah markuu u hadlaa iyo markuu oohinta ku jirto ka soo qaad maxaa dhahaysaa maalin la fariiso waxaa dhahaynaa maanta meeting aan qabnaa inaan kula hadlaa rabaa xataa 2 sano hadduu jiro wuu ku fahmaya ha isdhihina marna cunuga wuu yaryaa wax ma fahmaya way fahmayaan carruurta adu u sheeg adu ku gur waxaa ku dhahda maanta waxaa rabaa inaan idin sheego oohinta iyo codka caadiga ah iyo codka oohinta ku jirto waxaa dhahays waxyaabaha ku ooyaan camal aa dhahaysa ka soo qaad maalinka waxay u ooyaan toy ama cunuga meela ciyaara cunugan meela ciyaarayo toyga iidiide TV rabaa marka codkaas maqlaa way yaabay waxay dhahay hooy maanta maxaa qaldan ma aab maxaa ka qaldan codka fiican waa sida caadi TV rabaa cunug meel ciyaara saas u dhaxaysa waxaa dhahda codkaas markaa maqlo ma ku fahmo dhagahan aadi u xanuun dhagahan way xanuuna marka codkaas cunuga ama cunugta oo u oohin bada xaafada waxaa dhahda adiga madax ka noqo inay ilmaha markay saas sameeyna aad aragtid inaa ka joojisid oo dhahayd codkaada quruxda badan ha isticmaal codkan kale markaas waxay keenaysaa inay iyada madax iska dhigtaa ma asaga madax iska dhigo ruuxii ooynaya oo madax iska dhigo oo oohinta ilmihii kale ka ilaaliyo oo dhahaan markaas markay cunug dhahaya dan dhahaan codkaas cod sax ma aha ma fahante kan labaad waqti sii waxaa laga yaabaa carruurtaada inay badan yihiin oo cunugtaasna sensitive ay tahay ama cunuga sensitive oo yahay oo waqti oo dheeraad uu u baahan yahay marka waqti si maxaa waqti ku sii kartaa ina
يومي 5 أم 10 دقيقة وقت سي maxaa ku sii kartaa hoosh ila qabo kaala sirta firaashina dhanka ka soo qabo kaala cunta karnana ii soo qabo ukuntii qaandadii saxankii waxna ku barnayaan waan isku soo dhawaanayseen marka saas samaysid markaas waxa u sharaxdaa alla codkaada fiican saa u jecla marka kula hadla caadi oo in codkaada fiican aad baa u jeclahay alla codkaana jeclahay kan saddexaad wiliga ha ku dhihin cunugaada oohinta jooji ama oohinta markaa joojis waxaas ku siina taas ma shaqeynayso taas waxay sii kordhinaysaa ilaa cunugu markuu ooyo hadduu rabo inuu kusoo jeediyo ha ooynin oohinta daa markaa dhahda jaawo waa soo jeesatay waa intay rabtaa ama intuu rabay haddaa dhahdid markaa oohinta dhaaftaa waxaas ku siinaan waxaa bartay markaa la ooyo ayaa wax la helaya adduunkana saas ma u shaqeeyo waa inaan hadda tababarka siinaa oohin wax laguma helo kan afaraad game mar alla marka cunugaada la ciyaaro game la ciyaar maxaa ka wadaa cunugtaada ooyna ku imaad inta la heba wax badan ay ugu qosla doontiin markaa saas ay dhahaan waxaa dhahdaa alla aabi cunugteeda codkeeda quruxda badala ma table hoostiisa iga gale ma kuraasta hoosteeda ka ila raade alla gabadheedii alla wiilkayga cod wuxuu rabaa inuu ii sheego waan rabaa inaan dhageysto laakiin ma dhageysan karo codkii qurxanaa la'aantiisa wax ma fahmi karo alla dhagayaa xun ya caabi cunuga xaalada wax weyn ka dhageysa ya caabi bal ya caabi halkaan oo gale allah wax bay ii sheegay rabtaa alla ma fahmaya marka mugtaa codkii oohinta ku jirta ma shaqeynayso hooyo ilaa ma ku fahmaysa markuu iska jooji doonaan midda shanaad oo ugu daran wiliga cunugaada ha ku caynin oohinta ha ku caynin heblaay oosoy hebel ooyo marka caaydo ma fiicno caaydo videoyaasheeda video aan ka hadlin maba jira umaleyn caaydo wax ma soo kordhiso caaydo caruurta dhibaato u geysata caayda caruurta maskaxda ka dishaa waa idin baryaaya caruurtiina ha ku caynina meeshay ay ka jilacsan yihiin laakiin meeshay ka jilacsan yihiin ku amaan say ugu amaanaysaa gabadheeda way fiican markay ooynayn ay fiican tahay waa gabadheeda ama wiilkay markuu ooynayn fiican waxaa dhahaa alla ma ooynayso si fiicana maanta ii waraysatay oohinta dhan ee meeshaa ka saar marka waxaan rajeynaa inaa intaas ku afacday wax su-aal kale haddaa sii qabtid ila soo xiriir waadna ku mahadsantahay su-aasha ii soo warsatay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu